gelinta noocan oo kale ah waqti xaadirkan way yartahay ama dadka ku kaca aad bay u yaryihiin oo qof geesiya ayaa maalgelinta oo kale sameyn kara sababtoo ah waqti xaadirkan marka doonayso maalgelin aad samayso caalamka maalgelinuhu way fudud yihiin waayo waxa shaqeeya waxa la yiraahdaa central bank ama baan dhexe baa shaqeeya banka dhexe shaqadiisu waa maxay waa u dhaxeeye u dhaxeeya wuxuu dhaxeeyaa laba qof fikir haya oo hal abuur leh iyo qof lacag haya oo isagu lacagta meel u geeyo aan garanayn dadna qofka lacagta haya uu dhaqaaqa banku dhigtaa banka markuu dhigo ba qofkii hal abuurka lahaa codsi quru sameeyaa markaasuu amaahda lacag dadna maalgelin buu sameeyaa laakiin waqti xaadirkan inaad maalgelin samaysaa way adag tahay meesha halka dakhligu ka soo gelayo sida awgeed waan dhiirigelinayna kan geesnimu sameeyay wuxuu sameeyay dhiiranaan buu sameeyay aad baan u dhiirigelinayaa daayarta noocan oo kala ganacsiga ku kacaysan waan dhiirigelinayaa dawladana waxaan leeyahay qofka sidan oo kale u dadaala waa la dhiirigeliyaa waxa laga jabiyaa cashuurta kala laga dhaafaa waxa la sameeyaa waxa la incentive baa la siiyaa incentive dhiirigelin baa la siiyaa moral support baa la siiyaa hatta marka qaarkood haduu maalgelin dheeraad u baahdo waa loo fududeeyaa si qofkan oo kale uu meel fog u sii gaari karo waayo dadkan oo kale caalamka dadka hal abuur kale waa la dhaqdaa sida loo dhaqdo asset way waa hanti qofka hal abuur kale initiative kale waxa soo saari kare waxa ikhtiraacii kara waa hal abuuruhu waa qaali caalamka sida xamse sheegay qofka barasetka dalka ku ah ama shaqaystaha la soo kacay isagu inuu qof shaqaysanaya lugta qabto kan waa la demotivate garaya waa la niyad jabiyaa dadka waa laga qabtaa iska daa wax kale oo dawladii siyaad barre dictatorka ahayd bilaan xariista ahayd waxyaabaha ay qaban jirto waxa kamid ahaa dadka hadalka badan aadka u hadalka badan maqaaxiyaha fadhiya dadka jahwareeriya dadka horumarka ka jeediya maalgashiga ka jeediya waxa la oran jiray matabcada burweyne waa la xidhxidhi jiray dadka xabsiga la dhigi jiray matabcada xoogweyne ama tabcada burweyne waa ka maaragtay dadka ama qabyaalada ku jiheeyo ama wax kale ha ku jiheeyo kaas dadka yoolka ka habaabiya waa la xidhi jiray sida awgeed waa inaynu dhiirigelinaa waa aynu garab istaagnaa waa in wax walba u baahdo waa in laga caawiyaa waa in loo fududeeyaa markuu dalka alaab soo gelinayo kale waa in loo fududeeyaa si qofkii uu u dhiiranaan karo si qofkii meel u gaari karo mar labaad iyo mar saddexaad waan dhiirigelinayaa magaca meheradu waa hiigsi wax weeye yool weyn buu xaqiijinayaa yoolal waaweynna uu leeyahay hiigsiga himilada dalkeena hiigsiga himilada dalkeena ayaan ka tubtisa haysta tirkiyadooga iftimay hawada uduga nasaqday midhaha hoobanta hawrtay ilaa cirka ku hooray